Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo ilmaha ka saacida in miisaankooda ziyaado ama ay ku cayilaan waxyaalaha ka saacida ayaan muuqaalka kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada walow ay jireen muuqaalo hore oo 2 iyo 3 meelahaas inay yihiin aan u maleynayo aan kaga soo hadalnay haddana insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan mid kale aan maanta ku darno ka hadlayo ilmaha wax miisaankooda ziyaadiyo ama ilmaha cayilaya caatada ah hadii aad marka kugu horeyso ana soo booqataa subscribe no saar gambalaalka furasi fiidiyowyada cusub ku soo gaaraan hadii familka ka tirsan tahay in like no saar asxaabtaadan u sii share gareyn soo dhawaada mar labaad hadii cunugaada uu ku jiro xilliga nasnuuga waxa ugu fiican ilmaha ay ku cayilaan waa caanaha naaska hooyada waa waxa ugu muhiimsan ugu fiican ee number 1 ah ay ku cayilaan ilmaha waa caanaha naaska hooyada waxa wanaagsan hooyada in ayada cunto fiican qaadata wax badan dareer ahna ay cabtaa si naaskeeda caano fiican u soo galaan oo cunugiina korinshihiisa u hagaaga uguna cayilaan marka laga soo tago cuntooyinka bahalkina caanaha naaska waxa ku xigo sida fawaakihda oo kale oo ilmaha ay ku cayilayaan oo kale khudaarta ah fawaakihda sida waxa kamid ah oo kale mooska maangaha kale cambaha oo kumid yahay waxyaalaha ilmaha ay ku cayilaan faroolaha kale mishmishka qofkii heli karo kale meel laga heli karo qofkii joogo kale ilmaha way ku cayilaan zeytuunka kale ilmaha way ku cayilaan waxyaalaha ilmaha ku cayilaan waxa waaye wax walba faakiha walba ee dhadhankeeda marka ay dhimsaan macaan yahay ilmaha waxay ka saacidaa inay cayilaan liana waxa laga helaa sucraad xaraariye waxa la dhaho wax ilmaha ka saacida inay cayilaan ayaa ku jiro faakiha walba oo dhadhankeeda marka dhimsa aragta inay macaan tahay ugu rono ilmaha liana waxay ka saacidaa inay cayilaan hada sida faroolaha kale dhadhankeeda macaan iyo dhanaan isku darsan waaye saytuunka oo kale cambaha oo kale mooska oo kale maxaa la yiraahdaa canabka oo kale ilmaha way ku cayilaan liana macaan uu leeyahay sabiibka oo kale ilmaha way ku cayilaan asagana macaan uu leeyahay wax walba oo faakiha ah oo marka dhimsa aragta inay macaan leeyihiin waxay ilmaha ka saacidaa iyo dadka waaweynba inay cayilaan waxa wanaagsan inay hooyada ugu roonaato ee siisaan waxyaalaha kale ee ilmaha ka saacida inay cayilaan waxa kamid ah ukunta qayb weyn ka qaadataa inay ilmaha ku cayilaan waa hadii hooyada ay siisaa si saxan u siisaa maahan ukunta in sideeda ku siisaa waxa qurux badan inay cunuga ka karisaa hore ugu soo hadalna muuqaal ukunta kaga hadleen hooyada waa inay ka karisaa waxa kale ee ilmaha ay ku cayili karaan waxa waaye waxyaalaha miraha ah qaleelka ah ayagana ilmaha way ku cayilaan sida waxa kamid ah kala looska sisinta xulbado kale ayadana way ku cayilaan dhamaan wixii aragtid inay miro yihiin hadana ay qalalan yihiin ilmaha waxay ka saacidaa 100% ayadana inay cayilaan hadaa doonto waxa ugu dari kartaa sisinta iyo xulbado kale intaas ugu darto wax macmacaan ha ugu dartid ma cunuga siin kartaa ku cayilaa oo waliba markii sisinta iyo xulbada inta la isku riiqo ayadoo riiqan oo biyana aan lagu darin oo biyo caadi la caabay laga dhiganin mirihina aysan ahayn oo kale oo reeqo wax yar oo dhicaan loo sameeyaa hadii caano ugu dari kartid oo kale caano kula reeqdaha oo kale wax macmacaan ah cunuga dhadhankiisa jeclaysi karo kale hadaa ma ugu dari karto qudaar waxyaalo macmacaan ah cunuga hadii cunug sanadka weyn oo kale malab ugu dartaa si cunuga dhadhankeeda oo u jeclaada ayadana 100% wax ugu fudud ilmaha ay ugu cayilaan sisinta iyo xulbada marka la isku reeqo moos iyo caano iyo malab iyo hadii cunug sanadka weyn yahay waa sanadka yar yahay qudaar iyo wax kale ugu dari kartaa laakiin sanadka weyn yahay malab ugu dari kartaa insha Allah waxaan u badan tahay cunugaas 2 isbuuc ugu daytay inaad isbedelka dareentid hadii Ilaahay yiraahdo waxyaalaha kale ilmaha ay ku cayilaan waxa kamid ah hilibka kale sida hilibka gaduudan hilibka xoolaha iyagana ilmaha way ku cayilaan doorada kale maasha Allah si fiican isbedel fiican ka dareemay cunuga oo ayagana way ku cayilaan ilmaha waxa kale ilmaha ay ku cayili karaan oo ka saaciday ilmaha inay cayilaan waxa kamid ah caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida subaga caanaha laga soo saara yogurtka kale asagana caanaha laga soo saara caanaha xoolaha caadiga ah wala xataa caanaha gaasacmanka ku jira ayagana ilmaha way ku cayilaan waa caanaha iyo wixii caanaha laga soo saaro ilmaha way ku cayilaan cunuga wuxuu ka dareemaysaa miisaan iyo isbedel fiican
waxaa kale oo ugu muhiimsan hooyada haddii intaas aan soo sheegna ay siisaa oo kale cunuga waa in hooyada ay u fasaxdaa ciyaarta. Cunug hadduusan ciyaarinin uusan energy-ga badarkii aa siisay hadduusan soo gubin cunuga ma baahahay badar labaadna ma kaa cunayo. Jimicsigana waxay ilmaha ka qayb qaadanay ilmaha kale hooyooyinka badan waxay sameeyaan qadada markay taas u siiyaan liin hore ka seex. Cunugii inuu ciyaar dhan hooyada duhurkii ma ogola qadada markay ku ogaataa kuna see leedahay seexo. Cunugaas maxay u diidaa marka hadduusan cayirin xataa inuu asagu laga dhuudhuuban cunuga calool ka soo baxdo. Se cunuga jaanis oo calooshii badarka ugu shabto qadadii ka dhirtisay iyo biyihii caanihi asiisay 20 daqiiqo xataa maadan siin cunugii uu ku badboodo ku ciyaaro hore ka seexa dhahday. Cunugii waxay u badan tahay marka calooshiisa inay iska fido ma cunuga ku caatay oo dhuudhuuban xoogo caloosha ka soo horeyso. Waxa qurux badan hooyada markay cunuga kala qada siisaa inaysan hore ka seexin oo kale haddii ilmaha aysan iskuuli dugsiyeedna ku aadin guri joog yihiin oo kale waana 5 saac bar qadadooda siisaa 6 saac bar marka la gaarin aa seexisaa. Haddii inay ku nasan arabtid saacad ayuu cuntadii cunugii uu cunay ka soo wareegtay inuu seexda ayaa fiican. Ma ahan marka badarkii biyihiiba ku ogaatid in hore sarati ka saartid oo hore ka seexda aad ahayd ma fiicno. Xataa ilmaha kaliya ma ahan oo xataa dadka waaweyn waxa qurux badan qofka markuu cuntada cuno inuu isla markii hore uusan sararta ka tagin uu socod soo sameeyaa si cuntadii u kala degto jirkiisa u gashaa calooshiisa cuntadii isdul saaran ka baxdaa. Haddii cunuga cuntada soo cun hore seexa aad ka dhahdid horta raaxa la meelayo cunugii. hurdo raaxa leh ma helayo cunugii hurdo fiican oo jirkiisa uu ku nasto asagana raaxa uu ku dareemo ma helayo. Marka waxa qurux badan hooyada in ilmaha ay ciyaar u fasaxdaa markay cuntada cunaan si cunugu u soo baahdo haddana hadhuuti mid kale oo kaaga cuno. Mid kale hooyada markay rabto in cunugoodu u cayilo waxa qurux badan 3 waqti oo waaweynka 3 waqti oo kale oo yar yar ah inay daba joogto quraacda marka la siiyo kale cunugii subaxii markuu soo kaco 4 saac oo kale inaa siisidoo kale waxyaalo qudaar ah 6 saac markuu qaday 9 saac oo ka soo kaco inaa qudaar siisid markuu caaw ku casheeyo kale 12 saac cashada siisid. Haddii cunug 2 saac oo kale u seexahayo kale 12 iyo saac 1 saac habeenimo 7 habeenimo meelaas marka la maraa wax yar oo macmacaan ah siisid okay waa ayadana 3 waqti oo waaweyn oo inay 3 waqti ama 2 waqti oo kale yar yar ah ee daba socota si cunug miisaankiisa isbedel ugu dareentid. inshallah intaasaan kusoo gabagabeynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqataa subscribe oo saar gambalelkan furso fiidiyoo cusub ku soo gaaraan haddaa hore noo joogtaan like noo saar saxaafada soo share gareey soo dhawaada.